fiidiyogan igu soo meeshan gareeya Kabtan Ayuub. Waxaan rabaa inaan wax yar ku fahansiiyo walaalkayo. Maanta markii aad dhimatay xabaasha lagu galbiyo ee lagu dhigay iilka, qabiilkaagu ma dhahayaan wiilkan inagu shalayna difaaci jiray nala aasa ama dartii baynu isku dileynaa. Kasoo tag geeri, maanta haddii uu Ilaahay kuu qadaro inuu kugu dhaco xanuun oo uu ku asiibo xanuun, qabiilkaagu ma dhahayaan inaga caafimaadka siineyna oo xanuunka ka qaadeyna. bal iska badda xitaa qaarkood inaysan aqoon ku lahayn ayaaba laga yaabaa. Ilaahayga aad leedahayna ragka ma dhicinayo. Maanta markii aad xanuunsato ama dhibaato yar ay ku soo gaarto waa midka aad qirsantaa xitaa hooyada inuu kaaga naxariis badan yahay ee aad magaciisa ku dhawaaqdid. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee aad mar walba u gafaysidna waa midkii adigoonan dhalan ku jeclaa, qiyaamahana kuu doodi doono oo dhihi doono ummatii. Waxaan aragnay in badan adigoo marna nabiga u gafaya sallallahu alayhi wasallam, marna diinta u gafaya. maantana Allah walaalkayo adduunka yuu ku sirin.